oo ay goordhow ka qabsoomayso munaasabada lagu weyneynayo 26 Juun oo ah markii gobolada waqooyi ay xoriyadooda ka qaateen gumeystihii Ingiriiska waxa goordhow ka bilaaban doonta halkan ee munaasabadu ay ka qayb galayaan madaxda qaranka oo halkan goordhow imaan doona iyadoo oo sidoo kale lagu soo bandhigi doono kaalmo suugaan oo wadaniyada ka hadlaya waa maalin weyn oo qiimo leh maadaama ay ku suntan tahay maalin qarannimada Soomaaliya aad ugu weyn oo ah 26 Juun 1960 markii gobolada waqooyi xoriyada ay ka qaateen gumeystihii Ingiriiska sidoo kale toddobaadkan dhan waa toddobaadka xoriyada oo iyadu ah kooda luuliyana iyadoo ay ku beegan tahay markii gobolada koonfureed iyaguna ay xoriyadoodii qaateen isla markaana ay midowga labada gobol u dhacay waxa xusid mudan waxa soo gaari doona halkan madaxda ugu sareeyay ee qaranka kuwaas oo ka jeedin doona qodobada ku saabsan baraarujinta iyo wadani jaceylka la xiriirta maalintan weyn ee qarannimada ku suntan ee 26 Juun iyadoo sidoo kale halkan ay si weyn u sugayaan ciidamada ammaanka kuwaas oo iyagu ka feejigan dhagarta cadawga ee markasta ay khalkhal gelinaya nabadda iyo sugnaanshaha habsan u socodka munaasabadaha noocan oo kala ah waxa xusid mudan waxa ka qayb galaya dad kale oo shacab ah kuwaas oo lagu casuumay ka qayb galka munaasabadan weyn ee 26 Juun taasoo maamulka gobolka Banaadir maanta xaruntiisu ama caawa ay ka qabsoomayso ayna ka qayb galayaan madaxda ugu sareysa ee qaranka munaasabadan waxay ku suntahay munaasabad maalin qarannimo ah oo aad ugu weyn jiritaanka ummadda Soomaaliyeed maadaama tani markii xorriyadda la qaatay markasta la xusayay 26 Juun oo dal kasta markii laga hadlayo maalmahan oo kale ay aad ugu weyn yihiin qarannimadiisa iyo jiritaankiisa 26 Juun 1960 markii dalkeena xorriyadda uu qaatay ilaa haddana waxa loo dabaaldegayaa weynaynta maalintan iyo xuska taasoo la xiriirta in shacbiga Soomaaliyeed lagu baraarujiyo wadaniyada iyo dal jaceylka la xiriirta in dalkan laga soo maray dhibaatooyin badan iyadoo oo halgamayaashii dalkan u soo halgamayna ay uga tageen buuq qurux badan iyo diiwaan wanaagsan oo la xiriira harka maanta aynu harsanayna ah xorriyadda maanta dalkeen uu haysto uu ku nooloonayo si toos ah waxaad ula socon doontaa telefishinka qaranka munaasabadan dhameystiran ay ka qayb galayaan madaxda qaranka ee la xiriirta khudbadaha halkan ay ka jeedin doonaan sidoo kale kooxda fanka ah ee waa bari ay halkan ku sugan ku soo bandhigi doona kaalmo suugaana kuwaas oo ka hadlaya wadaniyada iyo dal jaceylka waxaana goordhow ay bilaaban doonto munaasabada halkan sidoo kale soo gaari doona madaxda oo iyaguna jeedin doona khudbadahooda la xiriirta munaasabadan iyo maalintan weyn sidoo kale waxa ku sugan saraakiisha ciidamada dad kale oo mas'uuliyiin oo dawladda ka tirsan iyo shacab badan oo lagu casuumay ka qaybgalka 26 Juun oo munaasabadan ah goordhow si toos ah ay u bilaaban doontaa waxa la saari doona calanka oo marka saacadu ay soo dur istaagto 12 caawa oo iyaduna si toos loo saari doono qaybaha kale ayaa goordhow daawan doontaan iyo sidoo kale khudbadaha halkan laga jeedin doona iyo kaalmaha suugaanta ah